waxaa jira hogaamiye Afrikaan ah oo leh magac laga baqo. Ma ahanna sababtu inuu yahay dambiile, ee sababtu ah waa geesi diiday inuu madaxa u foorariyo reer galbeedka. Magaciisu waa Ibrahim Traoré, hogaamiye dhalinyaro ah balse garab istaagay xorriyadda shacabkiisa kana hor yimid nidaamka gumaysiga casriga ah ee reer galbeedka. Wuxuu si cad u diiday joogitaanka ciidamada Faransiiska, wuxuu jabiyey xiriirkii qotada dheeraa ee dalkiisa ku xiraya waddanka Faransiiska oo muddo badan dalkaasi taladiisa gacanta ku hayay. Reer galbeedku waxay bilaabeen dagaal warbaahineed, waxayna ku tilmaameen cadow, laakiin dadka Afrika waxay ku tilmaameen halyeey. Haddaba su'aasha isweydiinta leh ayaa ah, maxaa ka dhigay cadowga reer galbeedka, gaar ahaan Faransiiska? Si aan u fahanno arrintan, waxaan ku eegaynaa barnaamijkeenna dhowr qodob oo muhiim ah. Magacaygu waa Cabdiweli Macalin Malto, halkanina waa Hogan 24 Media. Haddaba haddii aad u aragto muuqaalada noocan oo kale ah inaad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u ogaanno tirada danaynaysa. Haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato channelkeena, subscribe saar si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelino. Share dheh si uu u gaaro muuqaalkan asxaabta jecel. Ibrahim Traoré waa madaxweynaha haatan talada haya ee waddanka Burkina Faso, wuxuuna xilka la wareegay bishii Oktoobar sanadii 2022 kadib afgembi militari oo uu hogaaminayay isagoo ahaa sargaal ciidan. Wuxuu dhashay sanadii 1988, taa oo ka dhigaysa inuu yahay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu da'da yaraa ee qaaradda Afrika. Dhanka kalena ah hogaamiye dhalinyaro ah oo lagu tilmaamo halyeey cusub oo Afrikaan ah. Burkina Faso waxay muddo dheer ahayd dal ay si weyn u saameeyeen siyaasadda iyo dhaqaalaha Faransiiska, taa oo ka soo jeeday xilligii gumaystaha. Markii Traoré la wareegay talada sanadii 2022, wuxuu qaaday tallaabooyin uu ku ciribtirayo saameynta Faransiiska, sida inuu dalka ka saaray saldhigyadii militari ee Faransiiska. Wuxuu diiday inuu u hoggaansamo siyaasadaha Faransiiska ee gudaha Afrika. Waxa uu bilaabay olole lagu xoojinayo madax-bannaanida qaranka. Tallaabooyinkaas waxay si toos ah u dhabar jabiyeen siyaasaddii Faransiiska ee gobolka, waxayna midaasi hurdada ka kicisay wadamo badan oo Afrikaan ah. Traoré waxa uu noqday afhayeenka jiil cusub oo Afrikaan ah, kuwaasoo u taagan inay Afrika iskeed isku maamusho iyo in la helo madax xor ah oo aan ka amar qaadan quwadaha dibadda. Sidoo kale in la iska celiyo faragelinta dibadda ee lagu marmarsiyoodo argagixisada iyo horumarin la'aanta qaaradda. Isaga oo si cad isaga diiday nidaamka reer galbeedka, wuxuu ku baaqay midnimo Afrika ah si looga baxo silsiladda gumaysiga casriga ah ee qarnigan. Wuxuu dhisay xiriir cusub oo bariga ah. Markii uu xumaaday xiriirkii Burkina Faso iyo reer galbeedka, Traoré wuxuu u jeestay dhanka bariga, gaar ahaan waddanka Ruushka. Wuxuu xiriir dhow la yeeshay Ruushka, wuxuu oggolaaday wada shaqayn dhanka amniga iyo dhaqaalaha ah oo lala yeesho dalal aan ahayn reer galbeedka. Waxaa sidoo kale soo ifbaxay hadallo muujinaya in lagu tiirsanaan karo iskaashi cusub oo ka baxsan galbeedka. Tani waxay ahayd toogasho toos ah oo lagu beegsanayo nidaamkii hore ee dalkaas ka shaqayn jiray oo ahaa ku tiirsanaanta reer galbeedka. Intaas kadib waxaa bilowday dagaalkii warbaahinta reer galbeedka iyo Ibrahim Traoré. Warbaahinta reer galbeedka oo wuxuushnimo ku tilmaamay waxa uu sameynaya Traoré. Markii uu la wareegay xukunka, warbaahinta caalamiga ah sida France 24 iyo kuwo kaloo badan waxay bilaabeen inay Traoré ku tilmaamaan inuu yahay military dictator ah, sidoo kalena ah xagjir. Iyadoo warar badan oo been abuur ahna laga faafiyey xukuumaddiisa, waxaana laga dareemay in galbeedku uu arko halis ku soo fool leh danahooda istaraatijiyadeed ee Afrika. Marka hogaamiye Afrikaan ah uu isku dayo inuu dalkiisa dib u xoreeyo sida Traoré, waxaa si degdeg ah loogu sawiraa inuu yahay cadow ama khatar ku soo wajahan gobolka. Inkastoo galbeedku u arka Traoré khatar, shacabka Burkina Faso iyo dhalinyarada Afrika waxay u arkaan geesi gacan wado, iyadoo kuwo kalena ay u arkaan ninkii dareenkii Thomas Sankara dib u soo nooleeyey. Halka dadka qaar ay qabaan inuu yahay hogaamiye aanan baqayn balse u taagan
inay Afrika iska xoreyso quwadaha siyaasadeed ee dibadda kaga imaanaya. Taageerada shacabkaasi waxay xoogeysay mowqifkiisa, taasi oo kordhisay cadaawadda reer galbeedka iyo xulufadoodu ay u qabaan. Ibrahim Traoré ma ahan cadow keliya, sababtoo ah waa hogaamiye militari. Waxa uu cadow ku noqday danaha reer galbeedka maxaa yeelay wuxuu jebiyey qandaraasyo qarsoon ah, wuxuuna diiday faragelin aan sharciyeysnayn. Wuxuu olole ugu jiraa Afrika xor ah, ka madax bannaan gumaysi, iyo inay noqoto mid isku filan. Haddaba su'aashu waxay noqonaysaa, ma isaga ayaa khaldan mise waa waqtigii Afrika ay yeelan lahayd cod adag oo ka soo horjeeda gumaysiga casriga ah? Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. Hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. Mahadsanid.